mudane restaurant ayaanu joognaa halkan waxaa hortiina ka muuqda ninka la yiraahdo Master Farxaan Maxamed Yuusuf oo nin weyn oo mas'uul ah oo kamid ah shaqaalaha aad iyo aad ka firfircoon mudane bal waxaan maanta ka wareysan doonaa waxa uu halkan ku hayo iyo dareenkiisa waxaan ugu horeen ku soo dhawow wareysigeenan khaaska ah maxaad maanta inoo haysaa waxaan dhawahay saaxiib aad u dareenkay u fiican yahay waxaan joogaa mudane restaurant waxaan gacanta ku hayaa baashi loo jeeday afagaandada oo u bixiyay magaceeda Speed baashaas oo borotiinkooda aad u fiican yahay oo ku fiican dhalinyarada iyo dadka kaleba oo inka sharaabadii kale aad uga dhigtay iyada aad loo isticmaalo marka sharaabka waxaan ku leeyahay tayiis aad u sareysa afagaanda ilaa galbeed laga helaa Speed baan bedel magaceeda baashaas oo maalintii xoog u socota neefka oo magaranaysa iyo sharaabadii kale ay soconayaan waan gartay markaa Master Farxaan baasha Speedku dadku aad iyo aad bay u jeclaadeen oo aad iyo aad bay u cabaan faa'iidooyinkeeda maxaa baasha kamida mid iyo laba haddaad nooga sheegto waatan imika baaldi dhanbaad wadaa ilaa saaka wadii waan ku arkayay maxaa faa'iidooyinka baasha kamida faa'iidooyin waxa leedahay baashaas xabada ayaa la mid ah imika koobka ayaa la mid ah wasatiriga faa'iido badan bay leedahay hurda laga helay waxyaabo badan bay leedahay dadka qaar waxay leeyihiin gaastiriday ka dawatay calooshooda dadku jecelaysaa waxyaabo badan bay ku fiicantay habeenkii kale hawsha ka adgelinaysaa oo shaqeynaysaa waan gartay odayaasha kale lagu tagay habeenkii isticmaalaan ninka hawsha galay ma garanaysaa way soo kicinaysaa routine bay leedahay baashu hilib bay la mitay ninka habeenkii qaylo kale ka warqabo habeenkii qaylo oo ku fiicantay inuu hawsha galmo ka soo kaco laba koob cabo oo aalad baashano siday markaa dadku u cabaan tan iyo intii aad bilowday baashaad u magac dartay Speedka xoog buu socdaa markii hore wax yar buu socon jiray laakiin xoog iyo xoog ayuu socdaa Speedkaas markii aan bilaabo wax yar bay hayay laakiin waxa sameeyay laba baaldi marka way soo kordhaysaa inta sharaabadii kale iyadoo baa laga cabaaba gabigeeda waa tahay Master Farxaan dadka markaa aalaaba macaamiisha kuwa ee baasha Speedka soo doonto kadib markay cabaan ee ay kugu soo warceliyaan maxaa akhbaari dib kugu soo celiyaan ama cabasho ama wixii ay ka faa'iideena cabashay u soo celiyaan laakiin waxyaabo isbedel ay sheegaan oo ay heleen waa dib badan ay heleen waxyaabo badan oo borotiinka ka soo baxay rag badan oo yiri hawl baan qabanay aan qaban jirin marka baashan waa sharaab aalada moot ugu dambeyntii Farxaan waxaad halkan bulshada ka daawanaysaa aad ugu baaqaysaa siibahan arrimaha shaqada aad ku hayso bas ku qorshaysan tahay waxyaabo kale oo sida tan oo kale ah inaad soo kordhiso waxa soo kordhinaya Speedka oo sii wadaya sharaabo kale oo ay tamaan bilaabaya liintii shamaamkii cambihi waxyaabo kamida marka dadka waxaan leeyahay Speedka ugu cabba oo la eeg marka tayadiisa dumarku ma cabaan Speedka labadu isticmaalaan fiican rag iyo dumar way fiican walaal marka Speedkaas aad buu fiican imika sharaabada xoog buu socdo marka suuqa tagto kayug baa loo geeyaa meelaha qaar sharaabkaas marka tamar buu leeyahay koobka wasadii la mid ah anigu haddaan isticmaalo shaqada ma joojiyaba laga warhayo waan kala jibiyaa gabiida meesha farba ku reesay shaqada waa tahay Speedkaas sharaabada kale loo fiican yaroo soo wada hawshooda gaas wuxuu ahaa Master Farxaan Maxamed Yuusuf oo nooga waramayay baasha ama afakaadhaha waad arkaysaan gacantu imika ku walaaqaya wata baashi gacantu ku haya imika waa Speedka ragiib baasha ku taageeray gacantu ku haya imika baaldi buu wadaa bulshada waxaan ugu baaqaynaa in ay baasha ka warhayso aad iyo aad halkan waxa idinku diyaara Master Farxaan oo baasha idin sameynaya mar walba ka imika uu sameynaya uu istaaray badan dad baasha saaciday marka bulshada loogu baaqaya inay aad iyo aad uga waqayso halka joognaana waa mudane waad ka helaysaa baasha soo rasiim ah oo aad iyo aad u macaan badan aniga lafteeda idinla hadlaya waxaan ka mid ahay macaamiisha Optimada ee aad iyo aad ka u cabta baasha tan iyo waraysiga dambe intaan isku iman doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh اشعل Speed